munaasabada shaacinta musharax yuusuf faarax warsame daldah oo ka sharaxan gobolka sool ayaa maanta lagu shaaciyay magaalada ceel la helay oo ka tirsan gobolka sool waxaana halkaas ku shaaciyay beelweynta uu ka soo jeedo musharax xildhibaan yuusuf daldah ee beesha yoonis ismaaciil oo si mug iyo miisaan loo taageeray hanka musharaxnimo yuusuf faarax daldah. munaasabada shaacinta ayaa beesha yoonis ismaaciil ee ku dhaqan gobolka sool ayaa isku raacay inay soo xusheen musharax xildhibaan yuusuf faarax daldah oo u sharaxan aqalka golaha wakiilada ee gobolka sool iyo hal xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada xudun waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay waayeelka waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka ee ku dhaqan magaalada ceel helay. halkan waxaanu ka shaacinaynaa xafladan u qabanay magaalada ceel helay uga qabanay oo deegaanka gobolka sool ka mid ah xildhibaano inaanu ku shaacino laba xildhibaan oo kala ah yuusuf faarax warsame daldah ismaaciil axmed xirsi oo musharaxa isaguna golaha deegaanka gobolka sool degmada xudun ka sharaxan labada xildhibaan ayaanu ku shaacinay taageeradoodana aanu ku muujinaynaa haddaanu nahay beesha habar yoonis ee degan gobolka sool taageeradeedii labada ayaanu ku shaacinaynaa oo midna uu golaha deegaanka yahay oo ismaaciil yahay midna uu yahay golaha wakiilada annagoo in badan raacnay nidaammadooda iyo sistamkooda intaa ayaanu bayaaminaynaa waadna aragtaan taageerada nabadoon odayaal dhaqan waxaanu shaacinaynaa haddii aanu nahay haweynta degta degmada bohol iyo agagaarkeeda meesha aan ka hadlayaana waa ceel la helay kiilada waxaan u shaacinaynaa yuusuf faarax warsame xaaji oo daldah ku magac dheer halka dowlaha deegaankana ismaaciil axmed xirsi haddii aanu nahay odayaasha iyo dhaqanka iyo maamulka wixii jooga iyo marwo iyo mudaneba labadaa nin baanu kula jaan qaadaynaa wacyiga jira ee mid waliba meeshiisa u sharaxan yahay sidaasaanuna aanu somalilan kaga qayb gelaynaa haddaanu nahay marka hoosaan usii dhaadhaco beesha sacad yoonis layado yoonis ismaaciil dadku u yaqaano oo aad arkaysaan ummadda isugu timi waxaanu rabnaa inaannu shaacinno labadii xildhibaan ee nooga qaybgeli lahaa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. golaha wakiilada waxaanu u doorannay markii muddo badan aanu rogrognay aanu eegnay dhinac walba ka baadhnay waxaanu u doorannay xildhibaan yuusuf faarax warsame ninkaas oo nin aad iyo aad u qiimo badan ah oo si fiican markii aanu cuqaal culimo haween dhallinyaro dhinac walba aanu ka rogrognay aanu u aragno inuu yahay nin dalka diinta iyo dadka intaba u adeegi kara sidaa darteed isaga ayaanu u doorannay golaha wakiilada ee inagu soo aadan haddii allaha woodan aqbalo sidaas baanu doonaynaa inaanu ku shaacinno cid kasta oo ka mid ah beelweynta habar yoonis bari sacad yoonis. xafladan sida fiican loo soo agaasimay waxaa laysugu yimi in lagu shaaciyo magaalada layaada ceel la helay iyo degmada xudun qaybaha habar yoonista bari ee joogta inay ka shaaciyaan laba xildhibaan labadaa xildhibaan oo ah golaha wakiilada somalilan uu ka qaybgelayay yuusuf faarax warsame xaaji oo ku magac dheer daldah oo gobolka sool ka sarxan qaasaantan degmada xudun ismaaciil axmed xirsi oo isna ka sharaxan degmada xudun xafladan agaasim kale ee rag iyo dumar sida fiican loo soo abaabulay ee anshaxa leh waxaa lagu shaacinayaa labadaa xildhibaan in la siiyo codkoodii iyo taageero mug iyo manjilana haystaan. waxaa jirta rag istaagay gobolka burco kana soo duulay gobolka sanaag oo dhaafay gobolka sool oo aan sidan codkii yoonis ismaaciil ama codkii habar yoonis bari aan sidan taa waxaa layaa tuurku qaad wax mujtamacu isku raacsan yahay maaha waxna khuseeyana maaha deegaanka iyo dalka iyo dadnimada iyo dhaqanka iyo xusbigaba waxaanu ku ognahay labadaa nin aanu magacyadooda halkaa ka iftiiminay
waxaanu nahay degmada ceel la helay waxaanu ka tirsannahay waxaanu nahay tuulada ceel la helay waxaanu ka tirsannahay degmada xudun waxaanu nahay beesha habar yoonis ee reer bari gaar ahaan yoonis ismaaciil waxaanu halkan ka shaacinaynaa laba wiil oo midna yahay golaha deegaanka midna yahay golaha wakiilada yuusuf faarax warsame daldhah weeye wiilka golaha degmadana golaha deegaankana waa ismaaciil axmed xirsi labada wiil waxaanu ku doorannay karti aaminimo maxaan ku idhaahdaa daacadnimo noo soo xusay inaanu labada golaha wakiilada iyo gole deegaanka ay geela ugu heesaan ninba tacabkii toogay ka maal waxaanu aanaga guddoontaan annagana halka aan geysan inaanu idinka soo dhaaminayno ilaahay wuxuu nagu og yahay inaanu daacad idiin noqonayno inaanu idiin adeegayno yaasiin baal dahab telefishinka saab TV magaalada ceel helay ee gobolka Sool.